بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. runtii أخونا محمود hadalla aad u qiimo badan kuna aadan munaasabada mukayiri ilaahay baana waafajiyay subxaanahu wa tacaala. qof wuxuu yidhi hadalkiisa ugu dambeeyey haddii uu qof naga dhinto hadda meyd baaba noo yaallaba maba haba haddii uu qof naga dhintee haddadan aan wada hadlayno ayaaba meyd baaba noo yaal in laga hormari doono iyo in laga dibdhici doonana allahu aclam walcilmu cindah. hadalka inaan badiyo ma doonayo, muqadimo dheer inaan bixiyo ma doonayo, qofku markuu dhimanayo iyo xaalaadkiisa iyo waxa la samaynayo inaan ka hadla ma doonayo. cala tuul waxaan doonayaa inaan dhaqitaanka meydka si toosa uga bilowno. saa daraadeed waxaa ila shaqayn doona insha allahu tacaala dhalinyaro dhowra ayaa la shaqayn doonta insha allahu taala hadii la yidhahdo. idinku waxaad fiirsan doontaa marka qaabka aan u sharxayno. qaabo badan baa loo dhaqaa meydka, tawqiifiya ma aha, nadaamyo kala duwan baa loo dhaqaa. laakiin insha allahu sida uun anu koorsada aan soo qaatay aan sheekha u lahaa ayaan insha allahu tacaala aan samayn doonaa insha allahu tacaala. marka waxaan soo dhaweynaynaa walaalka aan ilaahay ka baryayna subxaana wa tacaala inuu wanaag waafajiyo. tafadal. marka koowaad ikhwaani manqasiikan idan raalli ah kolka hore soo dhamaystir baan ku yidhi muxuu ahaa qalabka muhiimka oo loo wada baahan yahay insha allahu taala hadii la yidhahdo. adus oo la iska daa okay camera qalabada loo baahan yahay maalan markii meydka la dhaqayo dadka dhaqaya sida ugu fiican horta dad mutakhasisiina oo cilmigan yaqaana waa inay yihiin marka koowaad. culamada qaarkood waxay dhahaan qofka dhintay markaa qaraabadiisa sida khaaska usii ah ayaa mudan inay dhaqaan, laakiin waxa masale iska waasica. haweenaydu way dhaqi kartaa ninkeeda, ninkuna wuu dhaqi karaa haweenaydiisa ama xaaskiisa. qalabka inta badan loo baahan yahay bahalka faraha la gashado hadda aan qabno maxamed cami waana sheegay laakiin wuu soo xaadirin bahalka la gashado isagana waanu nidhi. kabaha laftooda kabo khaas ah baa fiican maxaa yeelay waxa kugu soo duuduulaya waxyaalo fara badan. alaa kulli xaal iyo qalabkii lagu dhaqi lahaa oo insha allahu tacaala awala mar koowaad markuu meydku sidan oo kale uu yaallo qodobka ugu koowaad ee la doonayo in la sameeyo yaa ila shaqeynaya o raggii la shaqeynayay waxaan rabaa maraha mid kamida keen marada mid kamida keen insha allah bs adoo kala bixin inta ida inta u saar marka halkan saar halkaas raggii la shaqeynaya lama joogo meydka mar koowaad waa inuu intaa ka asturan yahay. nin baan hadda dhaqaynaa maalan waa inuu intaa ka asturan yahay kor iyo hoosba waa inuu sidaa uga asturan yahay intaa cawrada ah. kadib waxaan kasoo qaadnay marka inuu qabo dharkii uu ku dhintay meydku. manqaska waxaan u dalbaday waxaan rabaa inaan idiin sheego dariiqada ugu fiican oo qofka dharka looga bixin karo. hal qofkan dharkii uu ku dhintay buu qabaa soo saas maa isaga qaba manqaska tan isaga qaba. saa daraadeed intaad ka qabanaysaa kan oo kale fanaanada intaad ka goynaysaa marka waad goynaysaa ilaa aad qoorta ka goyso aad ka geyso. qoorta marka kan galo intan way go'day. kadib aad intaa kasoo bilaabaysaa, kadib aad haddana isu geynaysaa. qaybta kalena sidaas kala samaynaysaa. intaa kasoo bilaabaysaa ilaa intaad geynaysaa, kadib haddana inta kasoo bilaabaysaa intaad geynaysaa. idan si degan oo tartiiba ayaad maradii qofka uga bixinaysaa. sarweelkana waa sida oo kale. intaa waa sida qaababka mataqaana ay keen
marka hore dharka looga dhigay dharkii uu qabay looga bixinay kana tartiiba looga bixin kadibna maradan baa cawradiisa lagu asturay awal shay qofka marka saa u fiiriso waxaad eegaysaa maxaa ku yaalla oo nabar ah meel dhacaamaysa ma jirta meel dhiigaysa ma jirta meel wax daadinaysa ma jirta nabar ku dhacay ma jira xabad maa ku dhacday ma waxbaa ku dhacay awal markoogaad wax alla wixii wasakha oo marka hore meesha ka muuqato ayaanu eegaynaa taa waa qodobkoogaad qodobka labaad maydku markuu siinoo kale u yaallo qodobka labaad sida marka u yaallo maydku inta soo qabta marka soo wareeg sheekhana qof xaggaha joogo mar walba qofna xaggaha joogo maxamuud xagga tag adaraale maxamuud xagga tag bas awala qodobka maydka aanu ka bilaabayno waa inaan soo fadhiisino wax yar maydka u tur maxaa yeelay uu danqanayaa siduu dambe la qabo ha tartiibu soo fadhiisi si degan abas ilaa halkaasaa la keenayaa ilaa halkaasa inta loo keenaya waa maxay waxaa weeyaan tacsiiru lbatni horta caloosha inaanu riixno oon saa u riixno oon sidaa u riixno si hadday meelahan wax ku qarsoon yihiin ay u baxaan si meelahan wax ku qarsoon ay u baxaan awal caloosha ayaa saas la intaas kale lasoo fadhiisiiyaa waxaan dhan baa marka caloosha saas tartiiba ayaa loo tuutuujiyaa kadibna wixii ku jiray dabcan waa diyaar garoobay tartiib aad u dhigaysaa marka tartiib markaan u dhigno qodobka labaad marka muxuu noqonayaa inaanu biyihii ka raacino ayna qofkii waxaa ka soo baxay waxyaalaha ka soo baxay marka meeshana way dulashaa biyihii baan ka raacinayna intaa markaanu samayno meelihii dulduleelay ama wixii dhiig ka imaanaya o dhan ayaanu mataqaana ikeen wixii wasakha oo meesha ka muuqata ayaanu ka nadiifinayna si guud ahaan idan meydkii waa nadiif guud ahaan meel dhalaalaysa ma jirto hadday jirto suufkanaan soo qaadaynaa oo kaa shishay suufkanaan soo qaadaynaa suufkana markaan saarna kadibna lasaaqo ama waxaan ku dhajinaynaa baasha dhihi jiray maxay ahayd sharootaan ku dhajinayna intaa markii aanu samayno oo qodobka koowaad waan soo fadhiisinay intaa xusuustaan si uus tartiibka idinka dhumin qodobka koowaad maryahan ka siibnay intana waan u asturnay qodobka labaadna waan si tartiibaan usoo fadhiisinay qodobka saddexaadna wixii qashinaan biyaha ka raacinay hunaa marka halkaa marayso ayaa awa biyihii soo qaad biyaha kaas aywa waa kuwa biyahana marka waan soo qaadaynaa isaa igu qabo adiga tan saa igu qabo igu soo dhaweyn kadib anaa gacanta saa ula gelay qofkana marka hal ku shubaya marka halkan waa kaga shubaya biyo halkaas kaga shubaya waanu istijeenaya marka istijada saxa oo dhab ah ayaa markaa lu istijeenaya biyaha badan baa lagu shubaya waanu istijeenaya wixii markaa soo fadhiisinay iyo wixii haddaba jiro oo dhan baanu ka nadiifinayna intaa markaanu saa aan u istijeeyo ayaa marka waxaan samaynaa insha allah hadii la yidhaahdo xagga mar sheekhana adoraale laba xagga ha joogo mar walbo labana hayna joogeen ayib inta istaag waxaan rabaa marka maadaama si aan ugu istijeeyey waxaan doonaynaa marka istijadii inta ka dhamaystiranta ma dhamaystirno xaggaan rabaa haddana inaan u istijey si fiican waayo baryihii o dhan xaggay jiraan soo saas maa waxaan samaynayaa marka lugtan aan qaadaya markaasaan tan kor saaraya u fiirso gacantan aan qaadaya tanna saasaan lehay marka soomatan idan adugu inta qabo aduguna madaxa qabo xagga tag u fiirsada maydkii marka soomatan si degan oo tartiiba marka saa u noqdo asagoo aana xanuujinin ayaan saa marka u samayn qofka kale xagga taagana tan u haynaya toba kadib qaybtii kaloo halkan ahayd ayaan ka dhaqaya marka biyihii baa lagu shubaya intaan ka dhaqaya soo fadhiisi marka si degan oo soo fadhiisi inta haddaad fahamta haddana maxaad samayn lugta ka qaad haddana tan kor saar haddana gacantana saas soo samay aduu madaxa marka aad ku aadinta mar kastaba ama saasoo kale kadibna tanna saas oo dhe marka si degan oo saas mala fahamsani kadibaa marka haddanana sidiiba haddana loo dhaqaya oo biyaha laga raacinaya tartiib u dhig marka intaa marka aanu samayno lugaha waqaa si isku celi
انت marka aanu sameeyno oo aanu wixii qashin ah ka qaadnay oo uu istijeynay hada waxaan bilaabaynaa inaanu u weysayno weysadii caadiga ah taqaanin ayaa u weysayna markuu weysay oo shubiyaha faraha iyo sidii loo weysay caadi ah weysay ha si fiican weysay faraha dhaq okay waa dhaqday hadana far gacanta kala soo qabo hadana gacanta kala dhaq biyaha ugu shub jamiil hadana gacanta dhig kadib waxa sameynaysaa waa kuwan biyaha ugu shub biyaha inta ku shubaya kadib sanka asaas leeyahay kadib afka asaas leeyahay leeyahay kadib marka wajigii ayaan u weyseynaya marka weysadii baa si dhab ah aan ugu weyseynaya weysadii caadiga inta marka weyseeyo waa madax si fiican u dhaqo hadana waxaan bilaabayaa maxay gacanta ayaan bilaabayaa gacanta ayaan dhaqayaa sidii caadiga midigta kadib aan gacanta bidixda ayadana aan dhaqayaa waxa ku xigay madax baa masax soo biyaha lagu shubay madaxa kor u qaad wax yar saa ugu qaad kadib aan madaxi ayaan saa ugu masaxayaa ilaa dhagaha ayaa masaxaya kadib aan inta imaanaya kadib aan lugihi sidii baan u dhaqayaa sidii caadiga ahayd kadibna lugta bidix ayaan dhaqayaa inta waxaan ku dhameeyay meydkii in loo weysay weyse kaamil ah oo dhammaystiran ayaa meydkii asagaa loo weysay oo fiirsada meydku mara dhaqaaqaya meesha cibradu iyo wacdigu iyo waanadu ku jirto waxaa weeye shakhsiga xoogga badnaa oo maanta aan wax dhaqaaqa sida hadda arkaysa inta markaan sameyno waxaa noo qasnaa biyaha noo qasan waxaa kamid ahaa waxaa jira waxa la yidhahda qasiin haweenkuna way yaqaanaan madaxa anaga geedka gobka aan dhihi jirnay kadib biyaha hadda mataqaana waa la sameeyay hadda kan saabuun baa ku sameeyey saabuun caadi ah laakiin tanna waxaad ku samaynaysaa maxaa la yidhahda taas baashan raqwa la marka raqwa ayaa la yidhahdaa xumbada noocana oo aad loo bediyey oo saa loo sameeyey ayaa marka madaxa ayaa lagu bilaabaya madaxa marka dhinaca midig ayaa lagaga bilaabaya si fiican baa loo marinaya kadib baa dhinaca bidix hadana la marinaya madaxa ayaa bahashan xumbada ah ee raqwada ah si fiican loo gelgelinaya oo loogu dhaqaya madaxa markii si fiican loo dhaqo ayaa mataqaana waxaa la bilaabaya maxaa dara dhinaca midigta marka dhinaca midigta oo dhan ayaan haddana biyihii aan ku dhaqayaa raqwadan iyo wax oo dhan baan ku dhaqayaa kadibna waxaan samaynayaa sidii baan samaynayaa waayo dhinaca midigta midigtiisi soo dhinaca midigta lugta saa aywa kadibna tartiib baa saas u dhigi dabaan adoo kale xagga afar qof wataan dhahay maxaa yeelay qofna waa madaxa qofna waa gacantan qofna waa tan qofna waa intan dhexda mar walbaba dariiqada ugu fiican oo mid waa afartaa qof markii dabcan aniga hadlaya hadda laakiin day afartaa mid waa ku filaanay soo nin waa lugtan nina intan miisaamin nina madaxa waayo ninkan hadda madaxu waa meyd marka waa inuu kolba tartiib wada nina gacmo isticmaalaya marka saa marku hadda dhaho ani inta oo dhan baan dhaqaya marka inta oo dhan oo maxay raacsan tahay dhinaca midig markaan dhaqo ayaa haddana tartiib u soconaya mar walba meydku wuxuu ku xanuunsanayaa sida qof bin aadam u xanuunsana haddana lugtii baan saaraya lugta kale kadibna gacantaad qaban adug madaxa kadibna saasaan soo dhahaya marka u fiirsan siday tartiib u tahay oo qofku xanuunsanay kadib baa marka si wanaagsan dabcan madaxii iyo dhinacan dhanba iyadana bidixda la dhaqaya dhaqitaanka koobaad hadda hal mar baan dhaqnay marka hal mar ayaan dhaqnay anagoo raqwada isticmaalayni kadib waxaad ku celin kartaa 2 3 5 7 9 hadba meydkan inta uu nadiif u ku noqonay laakiin dhaqmadu waa intaadaan soo sheegay madaxii baa laga bilaabaya madaxa si fiican marka loo dhaqo dhinaca midigta lagu xigsiinaya qaabka loo rogayana waa nooca haddana bidixdaa lagu xigsiinaya qaabka loo rogayana waa nooca intaa baad ka qiyaas qaadan kartaa insha allahu tacaala halkana mar walbaba cawradu qarsoonta ana cawradu marna lama arkayo wayna saa u qarsoonaata marka waxaan la dhaqayo waa in gacanta lagu jiro idan halkaa waxaanu ku dhamaynay maxay dhaqitaankii meydka maxaa soo haray dabcan haddii meelo ay jiraan mataqaanaa waxay sida sharoota la marinaya ayaga intaa hadday jiraan meelo aan biyo la marin karina lama marinayo waa loo gebagabayn doonaa hadhowta markii la dhaqo waa loo gebagabeed qofku gubto ama iyo waxa lamidka insha allahu tacaala intaa markaan dhamayno hadda waxaan doonaynaa meydki inaanu kafan gelino kafanka dariiqada loo gelinayo waa dariiqa dhakiya insha allahu tacaala marka hadaad hal mar fadhiisato adoo mahadsan insha allahu tacaala la yidhaahdo
طيب وحصلنا مركوبات ورقدها تن نصو قبطة كون نصو مركو هالكاس ركب اللعبة نزال إيريا مركو روح لغو بلعبة يا حركها لغو بلعبة سوقه حرك المسوقه سنة هالكن لك سوقه وميت كان مسوقه كان كاقل كاس انت لك تصالة يعني صدق الله تصالة سكري اللي بعتمر طيب انت مركز سمعينه هذا وحنسوق هذا مركز مرضي كوبات كان مرضى وين كان مرضى وين ألبس كيناري ميس كلا لو ديارنا مياه ها أحسنت أما ميس كلا لو ديارين أما قد كي لف مارك بكرن الصندوق اللي جرينا يي مارك صندوق الثمانية اللي جرينا يو لفتي سايا واحد لو واحد ديارنا يا كذا ميكن ترتيب الله قاعده أي مارك اللي جرينا يا مارك سأسألوه جري مركوبات سواء تكرمه طلبات أتل بيها قد شيء وصاص شكتين أما مين كلا لغو بيس كلا وديارة أما ماشي لفت هذا أي اللي قرينا إن شاء الله تعالى دينا هنا تنوامي طلبات تستحات كم شيخنا هذا معزم حرقة أنت بدل ما الصدح إن شاء الله بدها تمر ربنا نقص بس كذا شراء بيرها نشوفنا لكن ورا إن شاء الله تعالى دينا هنا صدحات نواتن إن شاء الله وهي هاي انت عمرك انه نقطة بس كده تصاريال صوت رخي تفضل بيه عدا برداية كلنا عادي لكن وحي كلاو يتقولوا هي ستورة وكلنا كحتا بيها مسكيغا كوحانودا واتكو سمين كتا ان شاء الله تعالى على دي انت متغانا ايه كان وبهالي يرى محدا يا لا مدري حاليا ها هذا بس أنا حالات سمينة دق هالمرة أنا وصلينه ما يه حسمينة ساعتين هروجيت كلا ديريتيها تن هروجيت صح تن هروجيت أوكي جيد تفضل قال هذا إن شاء الله تنقل أرص عحير بس اوكي كدبنا waxyaalaha la idgoon miskiga iyo wax wadhan yala soo qaadaya meelaha la laabatada iyo waxaas laga shaqeeyo waska basiid weey dhibaato male tan lafteeda intii biyo ahaan lagu qasaabo mar yaa lagu shubo dhibaato male inta markaan sameeyno dhinaca midigta mar walba mid ku sida weey dhinaca midigta baa laga bilaabaya marka soo qad gacan midigta waalisa marka insha Allah جيد أريدنا سواء على مركب الدين بيحدى أيضا مع الصح أوكي هنا قاعد ما صار لي تلميذ تاني أيضا عمي نفسك شوف سعد ما يديك كان يديك أوكي تم هي صار مركب الدين كانوا كدمتي ودميسي وحارم عيني صواب حال حكي هو سيد أو ديارة وآن مستويني يصاب حياة ما يبدأ جيد ذهبا هبرينا كدبنا حصرين ساكن كحد كان كحد أو كي كان أميد باكم مقنع لكن كان وكاس بس ما يصير جيد إذا أركي سنة موين أوكي لما تمر horta meydku sidaasuu noqonaya soo dameyd oo meelka xwaani inaan ku cilmi qaadano oo qof walba inuu arrintan ku dambeyn doono ogaado waa mid aad iyo aad muhiim u ah sidaasaa marka loo sameynaya insha Allah tacaala haddii alla raalli ka noqdo kadibna sida loo dhigayo loo qaadayo loo gelinayo maxaa dhahaa sanduuqa kolka horena waa lagu diyaarin karaa oo waraaqaha kuwan hadda aan sheegnay laftooda waxaa lagu sii dhex diyaarin karaa maxay sanduuqa sidana waa loo diyaarin karaa hadhowta markii la qaadayo laba qaab waa loo qaada maro weyn baa lasoo qaada maryo waaweyn oo maryahan oo kale ah intaa laga geliyaa tuna dhexda laga geliyaa tuna maxaa la yidhaha intaa laga geliyaa ama adu dhexda iyo waxaa ugu muhiimsan tan iyo halkan hadhowta marka waxaa la qaadaya labadii maro ayaa tana la qaadaya madaxana si tartiiba loo qaadaya
ولا صار هذيك رسيدة عادي هي أنت قف قبلنا كل حاجة لو لوينها لا جيس كمركب يرضى كنا يوم حلقينيا جيس كمركب اللي يرجعيه وحاجة الله دركيه سيدات كاس وهلا محلها جانس كوين أي مركز قفنا أنتوا قعنت كجلنا قفنا أنتوا كجلنا قفنا أنتوا كجلنا قفنا كتاوي دميرته إن شاء الله تعالى دليل intaas waxaan u maraynayaa iyadoo kooban oo aan hadal badan aan rabin in aan gelgelino si kooban oo loo fahmo ayay ahayd sidii loo dhaqay meydka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dadkeena inta u naxariisto ujeedada ugu weyn inaan meesha isu diyaarino baa meesha ku jirta xaqiiqatan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii dhimatay ha u naxariisto fadlan Allah barakay jazakallahu khayr yaa kala soo gelay halkan yaa qof kale istafaro يا إن شاء الله سكتش عطاك الله يبارك أنت كوجا جميلنا مركز جنازة دي إن شاء الله خير جنازة سيلو تكنا يا مركز دوين سوي سواء نقلنا أنت ما جن حتى دي مركز هاي ميت كوين شد شيرا أفر عشان شيرا ما تبغى ترى إسلامها مركز وأنا لوي سنة واستوى رئيس مركز دبول نقع مركز نقع من لوي سنة ما هل كامرو خير الله سؤال في عن هل مرة ما لو ويسين مرة بعد ما ويسين مركان جنازة لما يو سؤال هذه فرق جنازة خير الله في وعند التي وحال أنا مش كل دمين واشر مركب بيها اللي قلنا غيره بيها ودك الله سبحانه قبوا يكون لي وإن إحنا حاضر له حافظك الله وإن إحنا حاضر له جنازة لما ما يكون سؤال هذه فرق جنازة مركب 4 تكبيرات وأفر تكبيرات مركين سوي يستاهل فضل شيخ هذا الشيخ سوي يستاهل أما اللي أنت ما دقناه رمادي ما تكلم ده ما فكروا يديكوا تاوضيار على هيدا أوكي ما تكلم إن شاء الله مركو النية هي ماذا حلق لها هذا واحد قصوا قادنا وحي قف كينو وها محي نين مركو نين هدوية هي ماذا حلق لها قف دوبر عطية ثاني أحدى لها مركو نين مركو يا وسيل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما فتح على الأخير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خاص مع الله أخير هذا التقنين بيجات الحرام برجع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أنا ما فتح على مكان دمايو جمعنا كرة ولو قال كرة ولا سكدين كرة ومثل خلافه وواصل الله أكبر كتب نصلي إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلي إبراهيم على آخر ذلك الله أكبر كذب ميت كل يدعينا الضوء يهيني ضميرك لا إلهنا يا اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله إلى آخره هذا قبرت هنا اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره هذا وعافها واعف عنها مركا وحلو إلى هي ضمير كاس جعل والغير غير هذا حلا مركا أضم سنة الله أكبر كذب من المسلمين تعلمون اللي دعية كذب من الدعاء من الله السلام عليكم ورحمة الله بيد حدنا ويسوع عرفت لما تمر ونسنا واسع إن شاء الله تعالى ديننا له الكاس عقف مركا قبر مركا اللي قرينا يو حلوان قرينا يا بسم الله على ملة محمد صلى الله عليه وسلم أي مركا البوكري إن شاء الله تعالى انتاس وحنا وجد بإن شاء الله تعالى أسئلة دينا إذا كنا بحثتي جزاكم الله خير وحبضل بكل دويه ماشي ترجو صدق كيهين دورك وشل ماشي رجو كيهين دورك وحسب دورك جورانسين دورا وربنا سمعها إن شاء الله تعالى أيضا حتى خياطي وحب هين يوم قابك الله تعالى inay nin ay qabsato qof dumar markaas aru fatwayna insha Allah adu waa ninku haday qof dumar qabsato uu gabagabeynaya bas ma wadaqayo bil ikhtisaar yani haday adiga qof dumar ku qabsato ma wadaqaysid waan xaaskaada waad u gabagabeynaysaa bas adigana ku gabagabeynaysaa gabagabada waxay istaagaysaa maqaamkeeda abitaan بس جواب في عنه جواب في عنه يا شيخي جيبه بالسواب برضه يا واساس بي
بوريس هذا ما هو بورين ضرورة ناس بيجي هو بوريس شيخ بوريسي فانزي شاعر فانزي بوريسي فانزي بالقاب ويسمر كان ويدو سيدو تكتان ويسيستا شيخنا إريا ويسو مركز ويدو بي مركز ويسيل بحال صغير intaas way marka qofka ajnabiga ka ah ee dumarka ah ma dhaqaysid waad u gabagabaysaa hadaan iska daayin ayaa kale ilmahaaga hadduu yar yahay oo 7 sano ka yahay dhaqi kartaa hadday gabar tahay hadday naag weyn tahay waa baab gooniya macal hooyada xaaskaaga waa xaaskiisa وهدو يري هي هدو هي السوسيبا لو دقيا سومالو dhaqitaanku waa isku mid hadduu yar yahay hadduu weyn iyo kafitaanka intaba طبعا hadduu yahay dhiig iyo waxyaalaha xinjir iyo xinjir iska daayay hadduu qof uu hadda soo dhashay yahay oo in la tirtiro u baahan yahay qof gubta hadduu yahay iyo waa laga yaabaa in laga soo helo laakiin qof dhammaystiran oo biyo qaadan kara ilmaha biyo qaadan karin baa jira sooma laga yaabaa inuu xara dhashay laakiin dhammaystiran yahay biyahana wax uusan qaadan karin waa la tirtirayaa لو تكلم إن شاء الله أياك رسالة إن شاء الله سعد قدام بشوط المسلمين تلود وعينا يا تكبيرت أفراد أنت كلاش هذا ولا ماي كلاش هذا ولا صلاة الربع بالضبط ويسقعمت ميت كلود وعينا والنبي قالوا ديرين شيء صلى الله عليه وسلم واحد كذا السلام هيك هذا ayaga u sheegi doonaa hadday ku qabsato waad u gabagabaynaysaa sheekh alfaadil hadday qof dumara ku qabsato oon xaaskaaga ahayn ma dhaqaysid sharcan laakiin waad u gabagabaynaysaa ha waa intaa baaraka allah fiik allah sheekhi meydka wuxuu u xanuunsanayaa sida aad u xanuunsanayso بارك الله فيك صادرات بان لديدي إن قبرك لو قدر يستاهو لو قدر حكاتشو لو قدر كاتشو لو قدر صحرون لو قدر تكدو وين لديدي قبرك وحوحا مصنيا سيدي قفنا لوحا مصنيا وجه وانيق ويسي والمرين كرتا لكن مرة داد ويسيسي وحوينا وحل كاما صارو لكن أصلا وضعت كرتا لباطا مالي لكن إنها هي السنكة هي أفك إلالي هدوك على هيو وإنها كلا هيو أفك كلا هيو السنكة على هيو إلالي ترتيب أولق أديك النصوف كجلسي أينا بيد لباين مركا وقلب kolkuu saa u jiifo marka hore waxaan dhaqayaa intaanaan dhaqaya maadaama marka inta kale dhulku ku hayaa soosas maaha ma dhaqi karo ilaa inaad sidii aan samaynay inaad sameeyo mooyaane marka waa isla midigtii laakiin dhinacana waan dhaqi markii aan dhinac dhameeyana waan gedisanayaa si aan midigta u dhaqo ninkee waa kanada dhaqayna بارك الله فيك شيخ نعم وحاجرة نهي أرد سؤال شيخ مهدي وإلى المغلسين ما غنى وحاجرة ويدمك ميت كالعاصي ويوبضا انتباعتين ضد بسيار كد العبه الله إلهي سبحانه وتعالى وما كانوا نعم ضبك نبي واديني قبورته مركل تشوره وديدي وحضب لي هذا حتى إنه قول حشد أما ضب وحلي هذا إنه قول حركه وحلون ديدي أنا وامحي والتفاؤل حموي نوع ما ماشي وحيا أما جنه أما النار وقف كان الله كل ميتون أساس معها مرك إن السيجار قدر شدته أما ضب شدته وواح النوع ما كأنما أديكوا هرمار يعني وصمينا إن نار الجليو
صادرات النبي جديد صلى الله عليه وسلم طبقة قالوا شو معي كدور دارنا قالها دي كمان هذين مسلمين تكه هذينا معنا أيوة ويبقى دينار بيجي أي الله خلافات كوضع ما خلاف كمان النبي يسيس وديده بالنهي صلى الله عليه وسلم ما ماشى خلاف كمان ما نبي قال بديده إلا إن هبين العصر يومين أو قصوا هذا نال إيه افتين أنجلين توا مسلم كوني أوي هديك الله واحد نظر فيها لما لكن مركا استري قعدت فيها مرض وصورها أي مقال مركا متوجين كأنما ميد أن واحد إحدى قيمة المدينة كحظ يسوع لكن على كل حال ويجر تارين تصيدا هدي أو أما ضبط شرو أما كانسر شركة جوجوي وحجرة كانسر شركة كل عاجر وخطرتي سلة دو شرو وباب جوري على كل حال هذا تقفكي أصور شركة صداع مايو وقفك نوع عصو كلا أنت ضاعنا يسوى الله قال لي حنايا أنت هذين نبلو قبيلة أنت كلنا وحلا وقدر ما يستريا جب يا الله وقدر ما يستريا ما رجع أمر صلى الله عليه وسلم كمان وحول الخمار الرجل خمار مكاتها صح كمان وحول الخمار يجوا قرط الدين لوايه وبعض الضرورة وحي لوايه حكم بالشرع وملك ضد قاعد شو تخزير كده السيد هذا حواسات حواسات دي بس أنا شغله سيدي سما واحد استاك تكون ويدو أو حنوسته فردي ما تكون سيدي سما واحد مستثناها اللي هذا أما ضرورة الشرع اللي هذا ومسألة قولي وهو كبحسن الدين لوايه مثلا الصحابي اللي يشري مصعب بن عمير دقال كوحد بكوشي رحمة الله تعالى وحال واي مرير يوقبي دي قارك هور لغا سارو محبة ناناني قارك الضمبي دي قارك الضمبي لغا سارو محبة ناناني قارك هوري محبة كل سمي جيدا يرير أو جيدا مارتي نقارك يرير لدهو جيدا يرير دي على انتو الله صوكري وكاسا له قري إذن ومن باب الضرورة مركا الشيء كستاوي حلاه الضرورة دي سولي خاصة دي لوايو وسيل لوايو أديكو قبضة الإسلام أو إسكو أموليسا أو وحكو أمولي أدويدو سوكو أموليس هذا ما وين كانوا مركز أخترك أذان أو تخصص لوبا هذا رقبة غيرة حتى قفة دي بالله قرية حتى ودمر شعبكم عليه تبادل على كل حال بعض الضرورة ومسألة جوا لكن الضرورة تقدر بقدرها ضرورة ذو نفط هذا قيم بين هذا شو عاوزنا تفضل شيخ نسوي له شيخ نبي ما شاء الله بارك الله فيك سلام أحسن مي وحاجر الصوف قاب بامبر أهان قصة ما يسمى بجرا مر والبال سماله كان حتى ما هني بحر سيدا بامبر كعادي جاء وقاب الشبك أهان كتير بجرا ومرك هربا لا الصعدة كفندا إنك طبعا ما وذنا مرينا لكن وطمة المسلمين تا مرك الكفن سوق كذا يسوق أنا أعتقد الكفن بالله وهي لو كان مثلا وكل احتراء مرك وبهال والتصوف كيس مرك أرتقف كين وحكي الصعدة ما ترى مدة بسعوك تصاص معها صادر هذا وحضور حريصة بامبرك عادي جاها أو وطو هذا وحكي لو إذا صوف كان استعمالي كدي من مرير وحضور حريصة أما كانوا كلا استعمالي إلى آخره صاد كتوش اللي هيد ما تشوفين كرتيد لكن حسمين إنسان كسيد هذا بدي كويس تاجي صار هذا ضرورة ده أصلا قرن كار إن شاء الله تعالى درينا حافظ الشيخ بشير شهداء لما شهداء لما نقول قبل نشكر الشهداء والله شهيد في الدنيا وشهيد في الدنيا والآخرة شهيد الدنيا ده بس هي الشهيد الدنيا آخرة شهيدكو ومضى الشهداء ذوي بدنت قفك كانسر كودر وشهيد قفك قري كسود وشهيد قفك جبت وشهيد قفك بدأ كل أنت وشهيد قفك ديارة ولا بعد وشهيد إسلام تأمر بعد وشهيد قفك الذي روح حضر الود وشهيد قفك معركات قال يا مسلمين سكور تميت والجهاد حقكم لتنا
وشهيد لكن ميتك قدام بيان شيء وشهيد في الدنيا والآخرة بمعنى لما نقيو لقمنا تكنيو آخرنا أجل كيسوين بلسو لكن انت أنصار شيء وشهيد في الآخرة بمعنى الدنيا ذا قفك قلت ولا نقي ولا قلت كان قفك قبل كدم ولا نقي ولا قلت كان لكن آخر ما كنت وحولي أجرك من قال يا مسلمين اسكور ما هذا كل شيء أجرك لو قر له وقالوا لي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحولي ومضي الشهداء ما تقانان كاس انت عشان إذن ومضي الشهداء ويران في مركز إلى قفك قبل كدمي قفك ما تقانا غرقومه وبيقول لقي أما بدو لقي قفك الراعي يا داعونك شوانك داعونك كاس عذرنا خطر كورن كواصلنا وشهداء لكن هو شهداء في الآخرة أجرا لكن ما شهداء في الدنيا لما هيو سؤال هذا في عن بشيء أنا ما صدق الله وبارك جزاك الله خير لا صدق حكسو ختم إن شاء الله تفضل شيخي ها شيخي مهمة إن تدخل سجد دياء الله قاتل عملية شنحوطة أبدا لأن قف ولبا ليش أقف سلطة يعني هذا النمارة وقالوا أهلتها سلسلاس خير الله بسيه ووانو وضي واندي وي وانا استيحوص سيدة دعوي ماشي أول رسيبه قبصنا وحاول ينهل كاقابك وكاحاس كاقابك يا كوشاقي حاس كاقو إنا يبريو أما صادة مقوريين يسو المهاقة إلى آخره هذا يبقى قبصنا كرتا شخصيا مركا وأهرين متى كان فرض الكفاية وي فرض العين بيكون كور عموما وقلت لكن هذا هو كفاية وهذا عدة تماضي أنت كلام يكلمي ويكدعي لكن يا وعد مشاهر الوصي ولا ليك على هبلو صاص ما مركا أجر صومه مربت هذا لفتاضر مركا هذا الأجر كيف هيدي الشيخ وياك حبيبي إن شاء الله وختم إن شاء الله ختم كده إن شاء الله هدوس واحد سؤال لما تشيلين إن شاء الله أي شيخ جزاك الله خير الجزاء وياك هذه كلب هو قبصته ومركا ذلك إنه تعالوا دنتو نقول صاص فاتقوا الله ما استطعتم انت أدو وحاسة وقعتها مي أبدا وحاسة وقعتها فرسمضوا وحيلة كو عاونيسا هدفك iyo goolka iyo dantaada inaad gaadho farsamo maxaa ka wadaa aqoontan markaad leedahay keligaa ma tahay tartiibka noocana wuxuu kugu caawinayaa wax weyn buu ka caawinaya bedelka qof halkaa yaalado waxba ka garanaynin meel laga bilaabo iyo si loo bilaabo aadan garanaynin waxaad talo maxaa sameeyaa isaga waa inaad taabataa qof koronto aan weligii aqoon ma taaban kara laakiin ninka korontada yaqaan muxuu sameeyaa ما هو يقانا إلى كديشوا صورة قلنا المستقبل كأكيد بالله ويدشالي لكن هذا وصوف سمني يقانا ما مركا وكعاونا يسأل لكن سبحانه وتعالى ماشي كليا كونا قريس كوما رجبا ما كليا كونا قريس كوما رجبا هل سؤال هذا أبو خطينا أي فضل حدد بيجي ماذا ينادو نوفر أنه كانوا أما بارك الله فيك وسؤال أخونا جزاه الله خير سؤال هذا فيه صحوة ميتك رجو ويدوكن كان لبضع الناط أبو بكر مركونا له صلى الله عليه وسلم جيري وذي أنتوا لبضع الناط لحظة كذا كذا بيري طبت وطاب ومحل هذا وطبت كلمة نوع عاصو كلا أيوة كوي عمر بن الخطاب أبو بكر بن أبو بكر يا نولي جيري بحكلمة داس بان ربي marka way banaan tahay dabcan ciday soo banaan tahay inay sugan karaan rag dumar saas oo kala wax taas wax dhibaato ma leesha maanta ceebta qofka meedka dhaqay waxa waajib ku ah sharcan qofka meedka dhaqay wuxuu la kulmayaa xaalado aad u fara badan qofka meedad badan dhaqay baa log xaaladda uu meedka arkay uu ku arkay waa inuu qariyo wixii ceeb ah
ceebtaa wax laga yaaba inaad dhahdaan maxaad ka wadaa ceeb mayd waxaa jira ku soo maraya oon dhaqbaynin haddaad 100 jeer dhaqda xataa uraya waa dhaqi miski baad ku dhaqi saabuun baad ku dhaqi haddana adiga baa afka hayso mantagaya waana soo martay mayd baa waxaa jira hal mar baad dhaqi hal mar markaasaad moodaysaa waxay يعني مرة محمود وعد أصير وكلاهن وح إنما قشنا الله ويدي عكرتها عيبة فرب بدن بل شيء كيس العيبة إنه عصرنا هذا مريوم من قبل زمانين ها شيء كيس العيبة فرب بدن رب الله عرك حلم كيس ترى كيس تاجي واي أو سأو تاجي يا رب ما يدقي ناشين حلم كيس ترى كيس سأو تاجي inaad ka sheekayso marka mayd aad dhaqday ceebtii adiga ceeb quuta ilaahayna adiga ceebtaada ma asturay allahumma haddii ay ku soo marto wax lagu cibro qaato oo dadka aad oga digayso sidii ninkii intii la duugay ninkii caayay muxuu ahaa nabiga sala allahu caleyh wasalam ee intii la duugay khudbooyinkaan ku sheegaynay ee la arka asagoo bannaanka yaala oo dhulku soo tufa oo dhulkii baa diiday sosomaatan qaar waxay sheegeen taariikh salad oo dhulku diiday qaar waxay sheegeen xuquuq الوالدين oo dhulku diiday sababtan wixii lil ibra waa loo sameyn karaa laakiin asal ceebta meydka lagu arko xaraam weeye in la faafiyo taasna waa dadka meydka dhaqay inay arinta aad u ogaadaan midda kale waxa weeye inaan la buuqin oo la qaylin oo meesha ayna suuq noqonin meesha khushuuc iyo deganaan inay marka ka muuqato iyo in lagu cibro qaato ميت كلمة قف على قل أجر آد فربنا بقولي على كل حال كما قبل كلمة يا إخوة سيدا يقوم هذا عيسين آد برمتي وكم هذا علم حضور كينا لجيس جينا هي كفايدة سجى محالنا إيه كان علمي كان أن ما تانو كفاية سنة العلم الدير ما هي لكن علم وحواراتك ويتصأ ومهمة وحنفلة قفل بهذه القرآن كرماش اللي قبل لابي سيد لو دقي ترتيبك يسير لو كان في إنه قرن هيا يقوم علينا قفلته الشيء ولكن جزاه الله خيرا hilmaanku ka wada qof in badan maanta khudbada inaan qayb ka ahay inaan isxusuusino dhimashada inaan isxusuusino geerida qof walba oo maalin inaad adduunka ka tagi doonto maanta wataan khudbada ku lahayn maydkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya dhahdaa kan la sii wado wiilka hadda maydka ee noo yaala inaan ka horeyn doono iyo in kale aan ka warhaynin inaan lafteena ka horeyn doono iyo in kale aan ka warhaynin laakiin cida mayd uun hadda asaga inuu yahay aan hubno السنتروسي لبدي سلوغت بكسودي هتبرد هذا لبدي سلوغت سوساسمو هتبرد هذا هاتشيدو هدورو لكن لبدي سلوغت بكسودي سكي وحكايا اي نطق بحدين كان يقول سوري وتليفون يصدروا ارتاقنا او حال كيسا مركا لسعودي المعنى ميرسي حيني جزا الله خير مركا غفلة اي هالمانكا انكا بحلو انيقا نفتايد اي نفوستي نبا goor ay geerin noo imaana ma naqaano waxa ugu muhiimsan ee lagu diyaar garoobi karana waa at-tawba as-sadiqa wa in ilaahi loo laabto tawbad saxiixa oo sadiqa qof loo caawa go'aanka gaar adduunyada waxa leedahay oo dhan labada maad ka qaadanaysa saddexdaas ka qaadaysa meeqa baabuur baad leedahay meeqa guri baad leedahay meeqa islaamood baad leedahay meeqa caruur baad leedahay waa hadiiba lagu helo saddexda maro oo marka dambena duud iyo dixiri iyo carradu ay qaybsan doonto ayaad adduunyo oo dhan ka qaadan waxaana baaqi kugu noqon doona waxda adduunyada shaqaysta al-amalu amaluka imma salihan wa imma talihan amalkaaga ayaa kugu haray inteenan meesha joognana waan isku imtixaamanay isku magaalaan deganaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qof dhaqi doona miyaan ka warhaynaa maanta walaalka ilaahay dartii wax inuu ku dhaqi doono warka maysi ani magaaladan bay u soo martay أنا محاضرة جديدة أيها هالكم فديا أيام محاضرة دي بانين باقوسن هذا اللي أنا شعلين بيقولي وأنا يرى يقول كاسان لا كنا حسن لا كنا مركب قلبه هو كلا قناعي هل أنا بقول شيء نوي نوها ما يقيس مشيء سووا بدين تو أنا نقي وحنطوري ملقي يا با إن هذا النقطة ما نقول هو إلهي محو قدري ninkii wuu dhaqay anana dhaqay wuu dhintay anana dhaqay kalimadan waa ay marka inta la meel qana qofka qof dhaqay doona abadan shirkaaga inuu taaban ka laga yaaba
marka walaalayaal ilaahay dartii aan isu cafino oo ilaahay dartii aan ku walaalowno oo geerida aan mar walba xusuusnaano oo mar walba ogow markaad qof walaalka ah qalbiga waxa ugu qabanayso inaad keliga qabri geli doonto oo meesha lagu seexin doono oo marada lagu tuutuubi doono inta aan xusuusnaano. wajazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum, ahsana ilaykum, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.